عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. On the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, from the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, from what he has related from his Lord. Verily Allah Ta'ala has written down the good deeds and the evil deeds, and then explained it, by saying, whosoever intended to perform a good deed, but did not do it, then Allah writes it down with himself as a complete good deed. And if he intended to perform it and then did perform it, then Allah writes it down with himself as from 10 good deeds up to 700 times, up to many times multiplied. And if he intended to perform an evil deed, but did not do it, then Allah writes it down with himself as a complete good deed. And if he intended it, the evil deed, and then performed it, then Allah writes it down as one evil deed. Narrated by Al-Bukhari and Muslim. waxaa laga wariyey ibnu cabbaas eebbe raalli ha ka noqdee labadoodaba wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagu eebbe ka warramiya inuu yidhi: eebbe wuxuu qoray acmaasha wanaagsan iyo acmaasha xun, markaas buu caddeeyey arrintaas. haddaba ruuxii niyadda u sheegay inuu sameeyo camal wanaagsan laakiin oo aan samayn waayo wuxuu eebbe u qori camal wanaagsan oo dhammaystiran. hadduu ku dhaqaaqo camalka wanaagsan uu sameeyona wuxuu eebbe u qorayaa 10 camal oo wanaagsan ilaa 700 oo jeer ama in ka badan. hadduu damco inuu sameeyo xumaanse uu samayn waayo eebbe wuxuu u qorayaa camal wanaagsan oo dhammaystiran. haddiise uu ku kaco oo uu sameeyo eebbe wuxuu u qorayaa hal fal oo xun. waxaa wariyey al-Bukhaari iyo Muslim.